تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. بسم الله الرحمن الرحيم. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah ee Universal. caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa siyaabaha loo xalliyo mashaakilaadka guurka. inta aan u guda gelin siyaabaha iyo habka loo xalliyo, marka hore waxaa muhiim ah inaan ogaano mashaakilaadka guurka waa wax caadi ah oo mar walba dhacayo. macnaa qof walba oo dhalinyaro ahna waa inuu ogaadaa يعني إن مشاكلات جورك أي تحي وح عادي أو مر والبدعايو إلى هنا وحو يري إن مع العسر يسرا مر والبقى نبدعو إن دف أيا كدم بيا مركتاس وإني أجادان إن وحال يرى هذا وحال الخبز اللي دكتا إن ساعد وجود مجدك بدن هبينكي وساعد وجود بيس أنتو صلاة فجر كدلن معنا ساعد هاس أيا وجود مجدك بدن كدبنا وحا صباح قرحذي إن صلاة فجر كأيا صباح مشاكلاتك adduunkana waa sidaas oo kale. markay ugu dhibka badan tahay waa markii ay farajki soo dhow yahay oo qoraxda soo bixi rabta. laakiin dhibaatada hadda jirta waxay tahay saacadaas mugdiga ah ama xaaladaas dhibaatada leh ayaa dad badan waxa arkaysa oo furiin ku degdegayo ama ardo oo jaamacadda iska dhaafayso ama yani nin dukaan leh dukaankiisa xiraayo. hadday wax yar sabri lahaayeen ama samir la imaan lahaayeen waxa dhici kartay inay arki lahaayeen qoraxdii ama farajkii. laakiin degdega waxaa keenaya samirkaas yar oo aan la imaanayn. marka haddii aan u guda galno siyaabaha loo xalliyo mashaakilaadka guurka, tan ugu horeysa waxa waaye isla markii inaad ka hortagto oo aad la hadasho lamaanahaaga oo aad ka wada hadashaan. maxaa yeelay mashaakilaadka guurka waa sida nabar kugu dhaca oo kale. يعني نبرك هدو كوكو دعو هدي آن داوين ديك بح يا كوكو دعايا أما نبرك إنفكشن أيو قادايا سيدو كلنا مشاكلاتك جوركا هدي اسكت دايسو أما مدو سكتو وحي إنفكشن أي قادايسا مرك وحا في عن إسلا مركي مشاكلاتك أو دعو إنا أذيك إيا حاسك هاجي أذنكو خف إذن سوء لحقلين كوضا هذا الشان وحانا في عن وقت مناسب سيدا مثلا رقا مركي شخذ كي مادان إسلا مركي هدو إنا وضا هذا النواي معنى رجي إن مسورته بس إن سود دالي حرت حوجا ير إنه نستو إن يعني حوجا عجلتي هأصون ناخذ مسك حديث مركز كبعدي أو إنا وذا هذا شان فريستان أيجو عرورت أنا جوجين عرورت هرتو دي لو ممر ما في عنه عرورت عقدت أي كقاعدة يعني مركا إن وقتي أو مناسب أيا إن يعني في عن إن لو وذا هذا لو إن هذا بوقتي أو كهبون يعني إن لهدلو أيا في عن سيدو كلنا إن وحا في عن إن مشاكلك لجهدلو أو أن خفك يعني أو أن خفك لا أبارن. مثلا وحا جرتو وحلي يراهدو إن عبشو إيا عمبارين. يعني عبشو وحاك عبانيسا مشاكل كوهيسو لكن عمبارين توحوا خفكي أيا هجوميسا هذيك مر والبسيدانا تهي هذيك سيدانا تهي مركز تاس حل مكينيسو بركي waxay noqonaysaa qofkii ayaa hujuumaysa dabkii shidnaa ayuu dabka la ku sii darayaa. marka waxaa mar walba fiican inaad mashaakilka baarto. مثلا tusaale ahaan hadday mashaakilku tahay mashaakil dhinaca maaliyadda ah, مثلا dadka qurba joogta ah waxaa jirto xaaskii reeray ka dhalatay wiilkana reeruu ka dhashay. reerahaas waxaa dhici karta qaar inay Kenya joogaan, qaar inay Yemen joogaan, qaar inay macnaa مثلا waxaa dhacaysa xaarskii reerkeedii ayaa waxay dhahaysaa yaan jeebka lagu gashan reera yani u maqan tahay lacagtaadii iyo waxaagii dhaqaalayso lacag noo soo dir yaan jeebka lagu gashan. ninkiina waxaa la leeyahay adigana yaan jeebka lagu gashan reera kuu maqan macnaa reerkaagii dhaqaalay. marka yani mashaakilku waxa waaye mashaakil maaliyadeed. marka xalkani wuxuu ku jiraa in aad ka dhigtaan labadiina reer hal reer. معنى لبدا رير وريركينا إنا هل رير كدكتان أو هل دينعو أركتان أو حاسكا رير كيدي أو أركن وح ضد حن أما أو آد نيت حمو كفيرسو سيدو كلنا نينكاغي رير كيسا إنا نيت حمو كفيرسو معها يعني لبدينا رير با هل رير كدقا
idinkana xoogaa meel dhigta labadiina reerna wax u tara intii oo karaankiina ah marka taas ayaa lagu xaliyaa sidoo kalena dadka warka banaanka kaaga keenaya ama reerahaagii macnaa waxaa laga hormariyaa danahaagii yani ka fiirso marka sidoo kalena waxaa muhiim ah in maqalka yani in markay mathalan xaaskaagii ay kuu sheegayso mashaakilkeedii ama ninkaagii uu kuu sheegaya mashaakilkiisa inaa fahamto oo aad u sheegto inaa fahamtay xataa ugu celiso aad dhahdo waa kasta mahno iyo markii aad u sheegaysidna ninkaaga macnaa inaad dhahdo niyo markii aad saan igu samayso sidaanaan dareema iga daa ama qof yahay markii aad sidaan ay igu samayso sidaanaan dareema macnaa dareenkaagii ka hadal laakiin qofkii ah hujuumin yani taas ayaa fiican sidoo kale waxaa fiican in mar walbo yani dhinaca xaaskaagii aa wax ka aragto sidoo kale waxaa muhiim ah in khaladkaagii aa fiiriso badanaa dadkii waxay mar walba fiiriyaan khaladka laga galay ma fiiriyaan waxyaabihii ayaga khaladka ay geysteen mararka qaad waxaa fiican yani in khaladka aa gashay inaad fiiriso marka sideedana waxay ku fiican tahay mashaakilaadka inaad labadiina xalisaan markay dad kale idin soo galaan waxaa dhici karta inay dabkii shidnaa dab kale kusii daaraan marka waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen waxaan ilaahay ka baryayaa dhalinyarada hadda isguursatay inuu ahaado guurkiina guur mawaddo leh oo macnaa guur oo farxad iyo mawaddo leh hadduu ilaahay yidhaahdo qolada oo inta hore isguursateen waxaan leeyahay kuwa isku waara oo kala hela oolaad baara ilaahay idinka dhigo waxaan ilaahay ka baryaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo jiilka cusub inay noqdaan jiil aqoonta guurka leh oo gurigoodii mawaddo leh soona saara jiil cusub oo Soomaali ah oo qaran fiican hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran daawasho wacan daawadayaal wax alla wixii fiican oo aan sheegnay wuxuu ka yimid ilaahana mahad leh wax alla wixii khalad ahna aniga iyo shaydaanka ayay naga timid marka waxaan idin leenahay mar walba inoo soo duceeya inuu aan idin keeno barnaamij tayo leh jazaakumullahu khayran maca salaama مر كل ذنبه دو إله يراهد تهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر